hooyo sariir saaran oo keliyihii waa hore laga saaray keli ka mid ah ay halowday midii kalena dib dambe keli looga geliyay kelidii loo geliyayna ay fashilantay ayaduna oo tuubooyin ay ku xiran yihiin oo 70 sano da'deedu ay marayso oo aan xoolo lahayn oo aan awlaad lahayn oo aan zawj lahayn oo wadamada gaalada ku nool oo isbitaal ku jirta ayaa isoo wacday xalay waxay weydiinaysaa maadaama istaaga ayna ku tukan karin fadhiguna dhib ku yahay tahaaradiina ay adag tahay siday u tukan lahayd walwal waxaa ku haya salaadaas tahaaro khaldan inay ku tukato ayaa walwal ku haysa walwal waxaa ku haya xaaladda ay ku sugan tahay ilaahay kula kulan adoo salaad khaldan tukaday taasaa culays ku haysa waxay raadinaysaa salaaddii inay u saxnaato weysaqaadka sida ugu dhow hadday booraysi tahay hadday masaxi tahay hadday tahaaro qaadasho tahay ayay raadinaysaa hadalka markay hadlayso waa daciif nolol adduunye rajo kama qabto waxayna ku yidhaahdeen nolol xagga u laabatay rajo weyn kama qabto waa qof ahlu salaada waxay rabtaa saacadda ugu dambayso nafteedu ay baxayso inay uga baxdo ayadoo salaad ku jirta oo tasbiixsanaysa laa ilaaha illa allah rabbiis hanuunka sidaas ah ayaa ah midka la raadiyo xoolo ma leh waxba ma haysato awlaad ma leh qaraaba meesha uga joogaa go'doonkaasay ku jirtaa meel ay ka soo tegi karta maahan oo qof halkaas yaallo isbitaal aan ka bixi karin laakiin waxay la nooshahay oo ay rabtaa inay ku dhimato kelimadda tawxiidka ah oo ilaahay intaas cimrigeeda uu ku sugay inay laxadaadka ugu dambeeya ay naftu uga baxdo ay ku sugnaato salaadeedaba saxiix ay ahaato cagsigeeda waxaa arkaysaa diyaarad baa raacaysa dadka saaran kulligood waa caafimaad qabaan kursi kasta kuwa fadhiya waa sheekaysanaya waxaabay cunayaan cunaa loo keenaya salaadii subxiga ayaa la gaaraya diyaaraddiina hawaday ku jirta hal qof iyo laba qof baa ka tukanaya kulligoodna dadkaasi waa muslimiin diyaaradda saaran waa arkaysa hal qof iyo laba qof baa ka tukanaya subxiga maxay iskaga daayeen qof yidhahda anuma weyse qabo qof yidhahda hadda mataqaasaata laguma tukan karo wax muhiimad ah iyo wax murugaho ay ku hayso iyo hal qof intuu kuu yimaado salaada see u tukadaa ku dhahaya ma jiro hal qof baa kursiga asagoo fadhiyo tukanaya arkaysa kursigiisuu ku tukanahaya qof kale halkaa tukanahaya inta kale waa iska sheekaysanaya maxaa taa ka sheegaysaa salaadii maqribkaa la gaarayaa muqdisho basaskii oo buuxbuuxa wax odhanahaya noo jooji ay baan jirinba markaasuu maqribka ilaa cishihii wuxuu sidaa zaxmad iyo ciriiri baskii ku jira dadka gaarigaa saarna ay leeyihiin waagaan gurigii tagaa tukanaya sida loo fududaystay cibaadaadka kuwii ugu waaweynaa ee camalkaba laga fiirinayo dadka meesha jahligu ka gaaray ayuu arrinkaasi ku tusinaya